بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. sidaa u jeediin waxaanu ka hadli doonaa geedka loo yaqaano liinta ama liin dhanaanta. liin dhanaantu waxay ka mid tahay dalagyada waqtiga badan qaata ama fruit riska ah. marka sidaa u jeediin hadda waxaa saaran liintii oo macnaha mirihiyaa saaran, aad u caafimaad qaba oo nadiif ah. marka geedkan liinta waxa waaye mirta oo gudahan ku jirto ayaa marka inta la qalajiyo la beeraa, deedna waxa weeye waxay noqonaysaa geedkanu waqti uu qaadanaya inuu miro dhalo oo adiga waqti uu qaataa, deedna miruu ku dhalayaa. marka uma baahnid marka inaad geedkan haddana aad abuurto oo mar kale ku celiso asagaa mar kale miraha ku celinayo oo haddana dhalayo. marka wuxuu u baahan yahay baalkaas oo fangaska ayaa ku dhaca oo laga buufiyaa. marka fangaskaas hadii aad ka buufiso ama cudurkaas kala dagaashid, waxay noqonaysaa inuu yahay geedka macnaha geed caafimaad qaba ama miro caafimaad qaba aad ka heshid. marka baalkaas necros ku samaynaya oo macnaha haleynaya caleemihiisa, maadaama geedku caleenta uu ku nool yahay. saan ogsoonahay caleentu waxay samaysaa geedka u samaysaa baalka la yidhaahdo photosynthesis-ka ama cuntadiisa wuxuu ku samaystaa caleenta dhexdeeda. marka caleenta haddii dhib ka soo gaaro waxay ka dhigan tahay geedkaasu inaysan noloshiisu sii jiraynin. marka waxa waaye waxyaabaha aadka loogu ilaaliyo dhirtay ka mid tahay oo lagu waardiyeeyo si uu life cyclekiisa ama noloshiisa u sii wato. marka geedkan liinka muxuu uu caafimaad u leeyahay? wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad iyo faa'iidooyin fitamiin intaba. fitamiina ku jira oo jirka ilaaliya oo white blood cellska aad u ilaaliya, kordhiya ayaa jiro ama difaaca jirka kordhiya. waxaa kaloo jira faa'iidooyin caafimaad uu leeyahay oo qofka markii uu suntoo kale ama sumoobo waa loo adeegsadaa geedkan liinta. waa geedaha loo adeegsado kamid yahay oo sunta burburiya. waxaa kaloo loo adeegsadaa qofka markii calool xanuun iyo mama uu ku dhaco waa loo adeegsadaa oo way dejisaa caloosha, waxyaabaa ay furfurtaa. marka waxaa kaloo loo adeegsadaa qofka markii lala bahayso kale waa loo adeegsadaa. marka faa'iidooyin badan oo caafimaadna wuu leeyahay, vitamiinis badanna wuu leeyahay. marka geedkan cilmi ahaan waanu u baari doonaa, laakiin hadda waxaanu ka qaadan doonaa horudhac ah geedkan inuu jiro uu ka tirsan yahay geedaha loo yaqaano citrus plantiska ama geedaha leh geedaha leh citruska ama baashan la yidhaahdo macnaha citruska leh. deedna waxaanu kasii ogaan doonaa inuu yahay fruit riska uu ku jiro oo qaybta liinta ka tirsan yahay ama citrus triska. marka intaas markaanu ogaano qaabka loo beero oo ah in mirtiisan ay ugu dhex jirto siibkii, deedna aanu ogaano caafimaadka uu biniaadanka waxyaabaha u leeyahay. marka waxaanu geedkan u baari doonaa marka cilmi ahaan asal ahaan intuu ka soo jeedaa waxyaabahaas dib aanu ka ogaan doonaa. marka intaas ayaanu ku soo koobaynaa. ku xidhnaaw beeraha tv si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha oo ah sector aad u muhiima markii loo fiiriyo dhulkeena qaniga ah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.